وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وتحنهني إنه سعدي أفرت الرع إنه كسميني وأنت وحمد لله هدو إلهي هذا خلق الكون الدون كان إنه نحن الله بلارن بحد وين قابك إلهي وأبوري قابك اللي دياري إنه بني آدم ككون ولاده. الله سبحانه وتعالى القرآن كوحينا وشيء إنه سماواتك يألوينك وأبوري يوحى كل نحن البا ونكو أبوري لحشو أبوريساسنا سيد القرآن كنا سو بندقي وحاه الرئيسي أبوريسا دولك الله بالله لبا maalmood kale ku xigay samaawaadkii baa la abuuray. labada maalin kale dambeysayna dhulka ayaa wixii u baahnaa geedihii, irsaaqadii, wixii bini'aadam ku noolaan lahaa oo dhanba ayaa lagu diyaariyay. 6 maalmood buu marka Ilaahay ku soo gabagabeeyay adduunka hagaajintiisa oo dhanba. dhinac markii laga fiiriyo Ilaahay waxaa ku filnayd kun fayakun in la yiraahdo inama amru idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. haddana 6 maalmood 6 casho ayay qaadatay halkaas oo lagala baxayo in ay tahay macnaha bini'aadanka noloshiisa in la doonayo inuu nidaam inuu ku socdo. dhanka kale markii la fiiriyo ereyga yoom quraanka wuxuu ku soo aroorayo ilaa macaani fara badan oo kala duwan buu leeyahay. mar alla wuxuu leeyahay fi 6 ayaamin. alla wuxuu quraanku leeyahay suuratu sajda يعني 50,000 سنة مما تعدون. ملك الله له كله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مركا يومكو القرآن كهالليو ومعاني كلا دوين هاي نوعية كلا دوين بنقطة. مركا من اللي مركا إلهي اللحمة المضبوط كأبوري معها المالمها عادية ما أنت أنا جاي نقاني هبينك ما أنت كوبان معها اللحمة المضبوط إلهي وجهه مالمها أنا جاي نقول هاي وواحد كذا شيء أبوريتانكي دولكي عركوي. مركا إلهي اللحظة مالمود أيوكو أبوري. نمكي قالها يهودها مركا إلهي تلماميو مركي وناكسنايين مقعبوسية مركي حمادين قلادين مقعبوسية xilliga ay noolaa wanaagsanayeen ay fiicnaayeen ay ku dadaalin jireen raaligelinta Ilaahay wadada Ilaahay u jeexay ku socdeen. Ilaahay wuxuu ka cabiraa wuxuu ugu yeeraa magaca bani Israa'iil markay qaloocdeen oo ay leexdeen oo ay wadada saxda ka bayreen. Ilaahay wuxuu ugu yeeraa Yahuud. nimanka Yahuudda ahaa ba Ilaahay bay aflagaadeen iyagoo leh Ilaahay 6 maalmood buu adduunka ku abuuray. maalinta 7aad ee sabtida Ilaahay waa u nastay waa u daalna xaasha. allana wuxuu leeyahay isagoo arrinka beeninayo warkooda cadeynayo walaqad khalaqna as-samaawaati wal arda wama baynahuma fi 6 ayaamin wama masana min lughub. samaawaadkii allooyinkan abuurnay iyadoo wax dhib iyo rafaad iyo kadeed iyadoo aanan la kulmin. marka abuurista koonka sidaa bay ahayd. dhanka kale markii la fiiriyo cirka iyo dhulka way isku dhaganayeen waa alla waa kala fujiyay marka كانت رتقا ففتقناهما واسكول لغناين وانو كلا فوجني وإلهي يري سبحانه وتعالى
dhanka markii la fiiriyo waa qaabkaas. dhinaca kale markii laga fiiriyo badanaa qur-aanku waxaa ku badan samaawaadka allooyinka. markii laga hadlayo waxaa la hormariyaa samaawaadka. xikmado fara badan baa halkaa ku jira. xikmadaha waxaa ka mid ah samaawaadka iyo allooyinku iyo dhulku. samada ayaa sharaf badan sababtoo ah samada waxaa ku nool makhluuqaad aan ilaahay ku caasinin, baynamaa dhulkay ku nool yihiin makhluuqaad fara badan oo ilaahay ku caasinayo. taasoo macnaheedu yahay qofka qur-aanka akhrisanayo dadka dhulka ku nool ee ilaahay ku caasinayo ha ka mid noqonin, waxaad noqotaa dadka wanaagsan ee ilaahay uu jecel yahay, ee ilaahay mar walba raaligelinayo. dadka iyaga ka mid noqo. marka abuuristii kownka iyo diyaarintii loo diyaariyey aabaheen aadan halkaas baynu ka qaadanaynaa. aayadaha qur-aanka in soo dhignina ayaa inoo cadaynaya. dhanka kale markii la fiiriyo aabaheen aadan wuxuu soo maray maraaxil dhowr ah. markii la abuurayay abuuristiisii 5 marxalo ayuu soo maray. marxaladda koowaad waa inuu ahaa ciid. taana waxay ku caddahay aayaddii ilaahi uu leeyahay inna mathala ciisa cinda allaahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab. ciid baa laga abuuray oo marxaladda koowaad wey. marxaladda labaad waxaa laga abuuray dhoobo. ciiddii lasoo qaaday baa dhoobo loo bedelay. innii khaaliqun basharan min tiin buu ilaahay yidhi, waxaanu abuurayaa bini aadan laga samaynayo dhoobo. marxalada kaloo saddexaad ilaahay wuxuu ka yeelay dhoobo dhegdhegayso oo qofka markuu gacan saa ugu taabtaba qabsanayso. allana wuxuu ku yidhi innaa khalaqnaahum min tiinin laazim, waxaynu ka abuurnay ilmo aadan dhoobo iyadoo dhanba dhegdhegayso. marxalada kaloo afaraad ilaahay wuxuu ka yeelay dhooqo qallashay oo haddana doorsoontay, isbedeshay, shiirkeedana isbedelay, muuqaalkeedana isbedelay. allana wuxuu leeyahay khalaqahu min salsaalin min xama'in masnuun. biniaadanka alle wuxuu ka abuuray dhoobo qallashay oo haddana midabkeeda isbedelay oo haddana shiirayso ayuu ilaahay ka abuuray. marxalada kale u dambeysay aabaheen aadan uu soo maray waxay ahayd in dhoobo qalalan oo sidii ashuunka oo kale la mid ah bay noqotay. marxaladii shanaad oo ah markii la garaaco cod iyo sawd in ay bixinayso. marka khalaqa al-insaana min salsaalin kalfakhaar buu ilaahay yidhi. insaankaa la abuuray isagoo dhoobo qalalashay ah oo haddana sidii ashuunka oo kale ah. 5 marxalo ayuu aabaheen aadan calayhi salaam uu soo maray abuuristiisii. maalintii aabaheen aadan la abuuray waxay ahayd maalin jimco gelinka dambe weliba, oo maalinta jimcada ayaa aabaheen la abuuray. maalin jimco ayaa jannada laga soo saaray. maalin jimco ayayna boonka qiyaamo u dhici doonaan. taas waa abuuristii aabaheen aadan wey. abuurista kale ee biniaadanka iyadana qofka biniaadanku wuxuu maraa 5 marxalo sida ay qur-aanka ilaahay uu nagu cadeeyay. xagga luuqada markii la fiiriyo waxaa la yiraahdaa erey macrifa oo alif iyo laam wato haddii la sheego oo markale la soo celiyo midkan dambe la soo celiyo kii horu la macnayahay. baynamaa erey nakira ah hadduu soo laabto kii hore iyo kan dambe waa kala macno duwan yihiin. sababteed qofka biniaadanka isagana wuxuu marayaa 5 marxalo. alle wuxuu leeyahay khalaqakum min nafsi. الله سبحانه وتعالى وحوليه سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ولا كابوري والدي ومركو قفك من ذي هيو ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعف لغاية صلاتي ومرك المها لضلاء ويدي هيو قوة هلك لغو شيغنا وحاوي ومرك المها ونقض قف دليل أرديه marka hadda waxa leeyahay suma jacala in baad daafin quwwatan wa shayba awoodi dambe ee 20 jirka ilaa 40 jirka iyadana waxa daba taalo dacfigaas oo ah inuu qofkii waayeel si noqdo kadibna ciroolo uu noqdo iyadana bini'aadanka 5 marxalo ee kala duwan ayuu sii marayaa. halka waxaanu ku gabagabeynaa haddii Ilaahay yiraahdo hordhici yaraa ahaa abuurista aabaheen aadan iyo abuurista koonka iyo bini'aadanka si guud maraaxisha ay marayaan. wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.